وادول سياسية دركستوي وداغان دمع بعد حيالو دغال هوسه با جيرا haysto xamar waad arkasaan maalin walba dhibaatada ka taagan ya iyo dhiiga daadanaya ubadka maantida waxba geysan iskuulka waa la tagayaa nabadgelyo lagu tagayaa qaran taabagalayo qayrkii ka roonow waxa tahay qabkaygiyo quruxdiya dadnimaday qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimadda gobolka cagaaran ee Gabiley ayaa fikrado kala duwan ku cabiray xaaladda dalka iyo go'aamadii ka soo baxay isbaahaysiga xisbiyada mucaaridka ah ee 13 November 2022 dalkayga nabadgelyo ku fadhinaa halkaasaanu fadhinaa nabad haddii jirin maana fadhiyeen muuskaasaan halka ku haysanaa alxamdulillah wixii ilaahay naga siiyo waanu cunaa waanu cabnaa nabad baan ku seexanaa nabad baan ku soo shaqo tagnaa ya annaga maanta wax naga maqan ma jiro balaayun baa naga maqan waxaan fariintaan u diray waxay tahay anigoo shacabkii reer Gabiley war waxa wanaag lagu waayo xumaan lagu ma helo waxaan leeyahay idinkoo istajiya wax walba way dhamaanayaan labadan sano ee la kordhiyana bariba way dhamaan idinkoo istajiyay oon qalalaasa iyo hadal oo waxba aydaan samayn dadkana calal xumo iyo urkuwa aydaan ku abuurin iyo ubadka yaryar aayar arrintiina miiska nabadda ku dhamaysta xorriyadna nagama maqno qof nabadiisii haysto xamar waad arkasaan maalin walba dhibaatada ka taagan ya iyo dhiiga daadanaya ubadka maantida waxba geysan iskuulka waa la tagayaa nabadgelyo lagu tagayaa alxamdulillah rabbil caalamiin muuse biixina waxaan leeyahay magacaha jiro horta muuse nimaan ahayn dalka maba wadi kareenba ya waxa soo maxaa maanta dalka Soomaaliland qalaanqal iyo uma baahna dhibaato dhaqaatiirta ay arkayaan maanta haday soo booqdaan cilmiba ugu kordhada maanta dhaqaatiirta Soomaaliland meel walba soo booqdaan dhibaato jirta xanuun baa jira abaara jira sixir bar baa jira maanta dadku dhan walba uu daciifsan yahay laakiin sidan imika wax lagu doonayo dawanna waxba ogeeyno nin walba inta afarta hadlaya nin walba ubadkiisa banaanka joogan mid ay dalka dhexdiisa joogan ma jiraan marka waxaan leenahay anaga nabadgelyo wax noogu jiraan hadii oo leeyahay iyo hadii dhalinyaro leeyahayba nabadgelyo wax noogu jirtay nabadgelyaanu doonayna awal horena ilaahay nabadgelyo weyn si oo ku caana maalay maanta nabadgelyo baanu ka doonayna maxaaday dadka baqlaynaya lagumana gaaro kursi dagaalna laguma gaaro ulna laguma gaaro feedna laguma gaaro waa hadiyad ilaahay bixiyo durba fiira dheeru durki fahanka xaajada dabadeedna sheekada dib u eegistu waday isagoo digniin qabay dibindaabyo loo dhigay ka dabaalay gabigood daliilkeedu wuxuu yahay waa duul siyaasiya dirkastooy wadaagaan damac baa dhaxyaallo dagaal hoose baa jira duulaanku waa hadal waa dodaf mishaar dablay loo hubeeyay dabalaabka qoriga iyo dilku waa ka xaaraan darajada u weyn ee dalacada bixisay dadku ay jeclaystaan dariiqeeda loo maro fikta buurta daaliya daruurtay la simanto dabin iyo shirqooliyada kanooyin baa yaal damanaha warmooga laga dadeexanteedo waa lagu dambaaba horta runtii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee sharafta badan ee nabadda jeceleen ka mid ahay waxa la isku haysto intiisa badan uu ka qarsoon yahay waxaanu marar badan aragnay oo u soo taagnayn iyadoo la iskhilaafsan yahay haddana bari toolo la heshiinayo ilaahay dumarka ubadkooga dhagaxa tuurayaan ee askarta shiidayaan ee waxaan ku yiri madaxda caayayaan shaydaanka iska naar ubadkiina islaan walaaba xireysanaa walba ubad bay dhashay ilmahaada halku ku maqayo ogow habeenka halku joogo ogow aroorta halku joogo ogow waxa weeyaan maxaysatada dadka dayarta ah dumarka caruurta silic ma kareyno darxumo ma kareyno meelaan u qaxniyo meelaan horartoona ma jiro adiga waa ku dan aniga waa iidan waxa weeyaan codka inuu lagama doono dadka waa laga wada doonaa waxaan ku yiri hadaa siraad ciroy cidun baad keeli inta alla ku diraad keelaysaa inta alla ka siiyaad keelaysaa dadkana waxaan leeyahay nin kursi doonaya yu dawladnimadiina idinka baabin kursiga markuu ku fadhiisto isagu idinma yaqaan ka maanta fadhiya iyo ka bari fadhiisanaya waa iskuunka mid inaga midna ma taageersan midna wuxuu xumaan kuma raaci karno sharci darrana kuma raaci karno barka waxaan leeyahay axsaabta macaaridka sharciga ah loo soo noqdo go'aankana ha ka noqdaan xukuumadana waxaan leeyahay inay tallaabo adag ka qaadaan si ayna dadka kalena ugu dhiireen waxa soo kala dee qaran taabagalayo qayrkii ka roonow waxa tahay qabkaygiyo quruxdiya dadnimaday qaran yahu nagaatay qormadaadu waa horay tartano qunyari soco dadku yu qalqaaliin qaaradaynu joognana gobonnimo naloo qiray qofna yu waxyeelayn qaafiyad siyaasiya qalad lagama waaye
dib u saxa isqabashada dadka jiijanayana waxaan leeyahay nabadun wax ku doona xumaani wax ma tarayso dhibaato waa tii la soo dhammaystay ooda waa tii afaafyada la riixi jiray waa tii maxaan ku idhahay maxaa soo hoyday iyo maxaa soo galay la odhan jiray dhibaatadii nin walba dee intii ogeydna way ogeyd intii aan ogeynna waa ta og markaas dhibaato waa la soo dhammaystay dhibaatadii inaan lagu noqon wixii la jiijanayana la isla eegto waa cabdisalaan maxamed bade bulsha t v gabiley واو اسبوعك في عايز صاحبي wadkeeshi sama ما شاء الله صح معك وش بسيط waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed salaam adeerkiin salaam alaykum waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato